Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Intaanan sii wada imtixaanayni waxaan soo dhex gelin doonaa macluumaad jar oo ku saabsan YouTube-ka. Dadka dhammaantood waxay isweydiinayaan waa maxay YouTube? YouTube ma leeyahay xafiis u gaar ah? YouTube-ka yaa aasaasay markii hore? Intaasoo dhan waan ka jawaabi doonaa maanta. La soco daawaday. Haddaba aan ka jawaabnay su'aasheena ugu horeysa. Waa maxay YouTube? YouTube-ku waa application American ah oo lagu soo share gareeyo ama la soo dhigo muuqaallo si looga helo waxyaabo muhiim ah dadka daawanaya amba shucuur iyo sharciyo gaar ah lagu soo kala gudbiyo. Dadku way kala duwan yihiin waxyaabaha ay ku soo kala gudbiyaan YouTube-ka. Haddaba dadka soo dhigayana waxay ka faa'iidayaan iyaguna ay u soo dhigayaan si ay uga helaan lacag amba si ay ugu gudbiyaan dadka kale waxyaabo muhiim ah. Haddaba ma jirtaa magaalooyin badan oo YouTube-ku ku leeyahay xafiisyo u gaar ah? Way jirtaa, dabcan haa. Laakiin magaalada ugu weyn oo xafiiskiisa ugu weyn amba headquarter-kiisa ku leeyahay waa magaalada Samburu oo ku taala California, qaaradda Ameerika. Haddaba su'aasheena saddexaad waxay noqonaysaa YouTube-ka yaa sameeyay? Abkan YouTube-ka yaa sameeyay? YouTube-ka waxaa sameeyay 3 nin oo ka shaqeyn jiray shirkadda PayPal-ka markii hore oo ku shuraakoobay inay wada sameeyaan shirkad. Waxaanay sameeyeen shirkaddan YouTube-ka. Ninka koowaad magaciisa waxaa la yiraahdaa Chad Hurley, ninka labaad Stephen Chen, ninka saddexaad Jawed Green. Inkastoo Stephen Chen ay dhalashadiisa dhabta ahayd Taiwan. Haddaba 3 nin aan xagga hore ku soo sheegnay waxaan sheegi doonaa nin walba dalku u dhashay, taariikhdu dhashay iyo xilligu ka dhashay. Chad Hurley waa nin American ah, wuxuu dhashay 24 January 1977. Ninka labaad Stephen Chen waa nin Chinese ah, wuxuu dhashay 25 Agosto 1978. Ninka saddexaad Jawed Green waa nin Bengali ah, wuxuu dhashay 28 October 1979. Waxaanay dhameeyeen sameyntiisa YouTube-ka ay ku soo dareen baraha bulshada 2005 February. Markay taariikhdu ahayd November 2006, Google-ka ayaa gatay YouTube-ka lacag gaadhaysa $1.65 billion. Isla waqtigaas YouTube-ku wuxuu noqday branch amba qayb hoos timaada Google-ka. Fiidiyowgii ugu horeeyay YouTube-ka waxaa la soo geliyay 2005 waqtigii la sameeyay YouTube-ka, waxaana soo dhigay Jawed Green oo ka mid ah raggii sameeyay YouTube-ka, wuxuuna ahaa 18 sekin. That's cool.